Ethiopia oo kamid ah wadamada caalamka ee aan lahayn badda ayaa xilligan wada diyaar garowga iyo dhismaha ciidan maareynis ah. Ethiopia waxay ku sheegtay ciidankan kuwa ka howlgali doona harada Tana ee dhacda gobolka Amxaarada sida ciidanka ka howlgala harada Victoria ee wadanka Uganda. balse ujeedku waa mid ka weyn harada Tana maxaa yeelay ciidamada badda ee ay doonayso inay dhisato. Tiradoodu waa 21,000 oo askari waana in la eg ciidamada militariga active-ka ah ay xilligan isticmaalayaan dalalka Djibouti iyo Qatar. maalgelinta qorshahan waxaa iskala dawladda Imaaraadka Carabta oo u ballan qaaday Ethiopia lacag dhan 7 bilyan oo dollar si ay uga caawiyaan dhismaha ciidankan badda. sidoo kale Ethiopia waxaa loo ballan qaaday maraakiib isugu jirta kuwa qaada diyaaradaha dagaalka iyo kuwa loogu talagalay ciidamada mariniska. haddaba muxuu yahay qorshaha Imaaraadka? Imaaraadku wuxuu 2015 duulaan ku soo qaaday Babul Mandab isagoo ku indhisraaciyay caalamka dagaalka Yemen. Babul Mandab waa mid ka mid ah qadadka ugu saxmadda badan xagga maraakiibta waxaana maalintii ka talaabtaa 4 milyan oo barmiil oo shidaal ah. ciddii gacanta ku dhigtaahina waxay hoggaanka u qabanaysaa 12% dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee caalamka. ujeedada kale ee Imaaraadka ayaa ah inuu cuuriyaamiyo mashruuca ballaaran ee Shiinuhu ku doonayo inuu badeecadihiisa caalamka ugu gudbiyo. wuxuu Shiinuhu ku howlan yahay mashruuc berri iyo bad ah oo ay qayb ka yihiin 68 dal si uu badeecadihiisa ugu kala goosto bariga dhexe ilaa Yurub. Imaaraadka waxaa wadnaha jartay dekadda Gawadar oo Shiinuhu ka hirgeliyay koonfur galbeed dalka Pakistan. dekeddan waxay qalqal gelinaysaa dekadda ugu weyn Imaaraadka ee Jabal Ali maadaama ay ku dhowdahay marinka Hormuz oo maro laba meelood meel shidaalka caalamka. Shiinuhu haatan wuxuu danaynayaa albaab uu ka geliyo Afrika badeecadiisa waana midda uu Imaaraadku ka gam-i weysan yahay maadaama ay dekadihiisa hoos u dhac weyn ku imaan doonaan haddii Shiinuhu dekada waaweyn ka hirgeliyo bariga dhexe iyo bariga Afrika. Imaaraadku wuxuu bilaabay inuu ku habsado dekadaha teedsan ee badda cas isagoo la wareegay dhammaan dekadaha Yemen, Djibouti iyo Berbera. laakiin waxaa heshiisyada uga baxeen Yemen iyo Djibouti. sidoo kale heshiiska Berbera ma ahan mid sharci ah marka loo fiiriyo diidmada baarlamaanka Soomaaliya walow uusan weli dhaqan gelin oo uu sugayo saxiixa madaxweynaha Soomaaliya. haddaba Imaaraadka oo taas ka duulaya waxa uu gacan saar la yeeshay Ethiopia si uu Soomaaliya u cuuriyaamiyo maadaama baleen ee la iska diidayna. Imaaraadku haatan wuxuu maalgelinayaa ciidamo bad oo Ethiopiana oo fulinaya siyaasadda ka dhanka ah Shiinaha shaqataga ah. fulinta qorshahan Imaaraadku wuxuu bilaabay kolkii uu Ethiopia dekadda Berbera ka siiyay saami dhan 19% isla markaana uu Somaliland ku qanciyay in guud ahaan saamiga uu ku wareejin karo Ethiopia. qorshahan waxaa qayb ka ah dawladda Mareykanka oo ka walwalsan dhaqaalaha isballaarinaya ee Shiinaha laakiin waxaa fulintiisa wadata dawladda Ethiopia. 16 Juun ee sanadkii tagay waxaa magaalada Muqdisho ka degay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isagoo saacado gudahood madaxweyne Farmaajo kaga saxiixay heshiis 4 dekedood Ethiopia u ogolaanaya inay maalgashato. imaanshaha Muqdisho ee Abiy Ahmed waxa ay ku soo aaday 24 saac kadib markii dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Amir Mohammed bin Sayid uu ka dhoofay gegida diyuuradaha Boole International ee magaalada Addis Ababa. xulafada ka dhanka ah Shiinaha qorshahoodu haatan wuxuu ku jihaysan yahay Somaliland gaar ahaan Berbera. 20 February iyo 9 March waxaa Muuse Biixi looga kala yeeray Addis Ababa iyo Abu Dhabi waxaana loo soo bandhigay qorshaha lagu doonayo in biyaha Soomaaliya ay ka howlgalaan ciidamo Ethiopian ah. Muuse Biixi waxaa loo soo jeediyay in uu dalbado in dib loo bilaabo wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland isla markaana uu shuruudaha Somaliland ku daro in ciidan ajnabi ah ka howlgali karaan biyaha Somaliland. waxaa qorshahan uu u eg yahay midkii DP Wall ee lagu hoos qariyay saldhiggii military iyo saamiga Ethiopia. dhanka kale kama marno qorshahan dawladda Eritrea ee dagaalkii Khaliijka la safatay xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka. qorshuhu wuxuu yahay Abiy Ahmed iyo Asiyaas Safawarki inay si toos u hordhigaan madaxweyne Farmaajo heshiis ilaalinaya dhaqaalaha ka curan doona gobolka. waxaana qayb ka ah heshiiskan in ciidamo Ethiopiana ay ka howlgalaan badda Soomaaliya. wuxuu dhowrayaa Imaaraadku waxa ka soo bixi doona labada qorshe ee u kala dhiibay Somaliland, Ethiopia iyo Eritrea oo dhinaca. loolanka juqraafiga ah ee ka socda geeska Afrika ayaa ah mid farxad gelinaya dawladda iyo shacabka Ethiopia. kadib heshiiskii labada hogaamiye ku dhexmaray Muqdisho, Dr. Abiy Ahmed wuxuu shacabkiisa u qeexay nuqulada heshiiskii uu Soomaaliya la soo seexday isagoo dadkiisa u sheegay in labada dal la midayn doono hal madaxweynena ay yeelan doonaan. laakiin madaxweyne Farmaajo uu ka qariyay shacabkiisa heshiiskaasi waxaana taasi ay abuurtay shaki iyo qatar ku aadan madaxbanaanida dalkeena Soomaaliya. baarlamaanka Soomaaliyeed oo ah hay'adda sharci dejinta dalka ayaa ka aamusan dabagalidda nuuca uu ahaa heshiiskii Soomaaliya iyo Ethiopia dhexmaray iyadoo haddii ay taasi sii socoto laga dhaxli doono in berri lagu noolaado dhul ay dad kale nagu haystaan.